بسم الله. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada walaalaha sharafta badan ee ku xiran janalkeena caafimaadka. soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaadba. maanta waxaan rabaa inaan ka hadalno wax bulshadeena ay aad ugu badan tahay, aadna u isticmaasho. dad badanna ay aaminsan yihiin inuu dhibaato keeno, kuwa kalena isleeyihiin aleelehay waxaan faa'iido ayaa laga helaa. maanta waxaynu ka hadli doonaa bunka iyo 17 faa'iido caafimaad oo laga helo. topigaas ayaa maanta ka hadli doonaa insha Allah. ugu horeyn, kafeega ama qaxwe ama bunka waa cabitaan sida shaaha oo kale loo sameysto, wuxuuna ka mid yahay cabitaanada dunida sida weyn looga isticmaalo, gaar ahaan dalalka uu ka baxo iyo kuwa caalamkaba. kafeega waa miro la jajabiyo oo biyo kulul lagu kariyo, sidoo kale waxaa jira mid qabow. bunku waa cabitaan ka mid ah cuntada, kaas oo laga sameeyo miraha geedka bunka. haddaba aan wax yar ka fiirino ama aan ka eegno ama aan ka hadalno taariikhda geedka bunka. geedka bunka wuxuu asal ahaan ka yimid dalka Yemen, halkaas oo lagu cabi jiray qiyaastii qarnigii 15aad. waxaana geedkan lagu magacaabaa coffee ama cafe. maantana waxaa soo saara in ka badan 70 dal oo intooda badan deegaan ahaan ku aadan gobolada dhulbadaha ee u dhaxeeya labada Ameerika, koonfurta iyo waqooyiga Ameerika, koonfurta Aasiya iyo wadamo badan oo qaaradda Afrika ka mid ah. marka miraha kafeegu ka soo go'o geedkiisa ay bislaadaan, ayaa la qalajiyaa oo la jajabiyaa ilaa la baceeyo oo loo dhoofiyo dunida oo dhan. caalamka maanta aynu ku noolnahay, bunku si joogto ah ayaa looga isticmaalaa meelo badan. sidaa awgeed wuxuu noqday caan, wuxuuna ku biiray nolol maalmeed dalal iyo dadyo badan. haddaba haddaan soo ogaanay taariikhda kooban ee geedka bunka iyo asal ahaan meeshuu ka imaaday iyo inta wadan oo hadda laga helo, waxaan rabaa inaan u gudbo meesheen inoogu muhiimsaneed, taasoo ah faa'iidooyinka caafimaad ee bunka laga helo. faa'iidada koowaad, hurdada subaxdii ayuu caajiskeeda kaabi'inayaa. subaxdii markii lasoo kaco, dad badan waxaa jira hurdada ku laabto amaba caajis ka bixila. marka bunka dadkaas wuxuu ka saacidayaa in subaxdii hurdada la seexdo uu kaabiyo caajiskeedii oo aad noqoto subaxdii qof firfircoon oo shaqaysta. faa'iidada labaad ee bunka wuxuu xaqiijiyaa xoogaaga iyo awooddaada. yacni qofka haddii uu hurdadii iyo caajiskii ka baxo, waxaa soo baxaya jirkiisa awooddii ku keedsaneed, kadibna wax ayuu ku qabsanayaa. bunka faa'iidada saddexaad waaye, bunka wuxuu kaa caawinayaa madax xanuunka. dadka madax xanuunka ka cabanaya bunka wuu u fiican yahay oo wuxuu kaa caawinayaa madax xanuunka. faa'iidada afaraad, bunka wuxuu kaa caawinayaa kolestaroolka inuu jirkaaga si tartiib uga saaro. dadka kolestaroolka qabo bunka wuu u wanaagsan yahay maadaama dufantu ay ku yar tahay. faa'iidada shanaad, bunku wuxuu hoos u dhigaa buurnida ku jirta cabitaanada kale. yacni maado dufan leh ayaa ku yar bunka, saas liajligeed wuxuu kaa saacidayaa in uu ka ilaaliyo buurnida. faa'iidada lixaad ee bunka laga helo, wuxuu kaa caawinayaa inaad shaqo adag qabato, maadaama uu ku siinayo firfircooni iyo tamar. wuxuu kaa caawinayaa shaqooyin adag inaad qabato. faa'iidada toddobaad ee laga helo bunka, wuxuu kaa caawinayaa wareegu dhiigu inuu si fiican u shaqeeyo, in aad noqoto qof active ah oo firfircoon oo wareega dhiigaagu si fiican u shaqeeyo ayuu kaa caawinayaa bunka. waxaa kaleetoo ka mid ah faa'iidooyinka laga helo bunka. faa'iidada 8aad, wuxuu ka ilaalinayaa gabowga degdega. cimri degdega dadka kusoo degdega ayuu ka ilaalinayaa bunka, ka hortagna u yahay. faa'iidada 9aad,
kafaygu wuxuu ka caawinayaa bixitaanka timaha. dadka timaha u bixi laayihiin, dadka timaha ka jajabeen, aad ayuu ugu fiican yahay haddii ay cabaan kafayga. faa'iidada 10aad, wuxuu ilaalinayaa caafimaadka xusuusta maskaxdaada. wuxuu u fiican yahay caafimaadka iyo xusuusta maskaxda. wuxuu kaloo ilaalinayaa caafimaadka ilkaha. caafimaadka ilkaha bunku uu u wanaagsan yahay. wuxuu kaloo la dagaalamaa xanuunada keena waalida. xanuunada dadka qaar ku dhaca ee u keena waalida, isla hadalka, isku buuqa, aad ayuu ugu wanaagsan yahay. wuxuu kaloo ka hortag u yahay lana dagaalamaa isku buuqa ama depressionka ama walwalka. dadka ka cabanayo, dadka isla hadlay, dadka dhibaatada maskaxda ka gaartay, dadkaasoo idil wuu u wanaagsan yahay bunka. wuxuu kaloo hoos u dhigaa stresska iyo warwarka. stresska oo ah maanta cudur walba oo qof ka cabanayo wixii sababay. cudur walba oo qof ka cabto, sababaha sababay waxaa ka mid ah stress. stresskaas ayuu hoos u dhigaa. stresska waa wax aad u xun oo qofka cudur walba u keeni kara. cudur walba waxaa kuu horseedi kara stresska. marka aan iska ilaalino stresska. sidoo kale wuxuu ka hortag u yahay lana dagaalamaa xanuunada caadada ee dumarka. xanuunada caadada ee dumarka wuu ka hortagaa, hadday u imaatana wuu u wanaagsan yahay. haddaba intaas oo faa'iido waxaa laga helaa bunka. aynu ku dadaalno annagoon iska badineynin, sababta oo ah wax kasta waxay leeyihiin qiyaas. wax kasta waxay leeyihiin xad gooni ah. si kasta uu waxaan daawo u yahay, haddaad dhahdo waxaan daawo waa iska isticmaalayaa, wuxuu kuu keeni karaa dhib. wax kastoo daawo ah dhib iyo dheefba way leeyihiin. waxaa wanaagsan in wax walba si qiyaas ah oo normal ah loo isticmaalo. haddaba aan ku dadaalno annagoo si qiyaasa u isticmaaleyno, oonan ka dhigaynin waxaad dhaaf ilaa heer uu dhib keeno. waad mahadsantihiin walaalaha qaaliga. maanta intaas ayaan ka hadlayna oo toobigeena ku saabsanaa faa'iidada laga helo kafeega ama bunka. waan filayaa inaad ka faa'iideen oo dad badan laga yaabo wax kale inay ka aaminsanaayeen, balse maanta ay ogaan doonaan xaqiiqadiisa. waa mahadsantihiin walaalaha sharafta leh inoo shargareeya fiidiyowga. asxaabta cusub soo dhawaada, noo saara subscribe-ka, gambaleelka, like-ti waa inoo muhiim. wixii tala iyo tusaalena qaybta commentiga. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.